markaan waxbarashada ka warramayno waxay dhahdaan aqoon-yahanadu waxbarashada dunida taalloo dhan 3 qaybood baa loo qaybiyaa. waxbarashada dunida taalloo dhan waxaan waxbarashada xoog uga warramayaa waxa weeyaan dee ilmahan intaynu iskuul geyno ayna wax dhaba ku darsanin. سأقول واحد ربعين أنت الماما وحبرشته خطرت دي واحد لورد جاوه حيي ين نتيجة البرودكت كيسوس أرتسين واركرنا علوم تبين هذا دونيد التلا وصدق غيبوت غيب ولا كلا قرصدا ليس منسيو سينما الله يسكونا أقولادو بس سينما الدونيد هو ينايا كنعلا غيبنا والله يسكو قصبا سنكال يسكجليا والله يسسيا ولا مال قرية قفك بررية قيبنا والله كلا قطابين هذا waxbarashada dunida taallaa bay dhahaan saddex qaybood qaybta koowaad ee aan sinaba la isu siin waxay dhahaan waa culuum siyaada waa culuumta keenta wadan inuu dhaqaalaha dunida ama hogaamiyo ama xoogga dunida hogaamiyo ama waxaan hogaamiyo waa culuumta ku saabsan bay dhahaan مثلا nuclear weapon iyo wixii ku saabsan la isuma ogola cidii xariiqdeeda xaggeeda soo eegtana haddii la tumi karo waa in la tumaa waa culuumta ku saabsan cilmi alfadaa cirka iyo waxaan loo diray iyo wixii ku saabsiisan waa culumta ku saabsan hubka oo dhan iyo teknolojiyada ku saabsan waa culumta ku saabsan core idea-ha ay leeyihiin shirkadkan waaweyn ee dunida ka jira shirkadana ma bixiso core idea مثلا Coca-Cola boqol iyo dhowr sanadood buu hadda secretary oo ay leeyihiin markasta dunida laba qof oo qura xataa waxa meesha ka jiro oo dhan meel bay ku qarsoontay bangi bay taallaa laba injineer oo qura loo sheegaa waxaas la isugu qaldo that's all cid kale oo ma jirto boqol iyo dhowr sanadood bay hadda maraysaa idan aqoomaha dhaqaalaha abuura xoogga abuura taliska abuura waxa abuura la isma siiyo